بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غطى السلام عليكم هانتي ملك استوى جوجتان سود وهذا صحابي سود وهذا ويهي galbeedka gobolka Hiiraan waxa la rajaynayaa in ay ka bilowdaan howlgallo looga sifeynayo kooxda argagixisada ah deegaanada galbeedka Hiiraan fadhiso oo halkaasi in muddo ahba hukumahoodii ay ku daadsanaayeen runtii marka dawladda hadda waxay qorsheynaysaa in galbeedka Hiiraan laga sifeeyo kooxda argagixisada ah runtii waxaa ciidamo ka baxeen magaaladan Muqdisho oo ay gaareen magaalada Beledweyne ayagoo halkaasi ciidamo kaleento oo dawladda ay leedahay halkaasi diyaar ku sii ahay magaalada Beledweyne runtii marka waxaa la rajaynayaa marka hadda in oo bilowdo wajigii argagixisada looga sifeyn lahay deegaanada galbeedka gobolka Hiiraan soo dhawaada asxaabay soo dhawaada fadlan haddii oo muuqaalka ay ku soo gaaro share iyo like intaba noogu qabo haddii aad nagu cusub tahana page-ka follow inoo dheh dhanka kaleentana YouTube-keena soo booqo Cabdixakiin Maastiko halkaasna subscribe-kana soo saar gambarelkana soo furo soo dhawaada marka asxaabay soo dhawaada magaalada Muqdisho waxaa ka baxay ciidamo isugu jira ciidamo beeleed iyo ciidamo dawladda ay leedahay waxayna gaareen magaalada Beledweyne ciidamada beesha Badacade iyo ciidamo ay dawladda leedahay weeyaan ciidamada ka baxay magaalada Muqdisho waxayna gaareen magaalada Beledweyne ayagoo ujeedkoodu uu yahay in galbeedka Hiiraan laga bilaabo dagaal looga soo horjeedo kooxda argagixisada ah haddaba su'aasha marka la isweydiinayaa waxay tahay galbeedka gobolka Hiiraan waxaan ognahay meelaha hadda ay ka joogaan in ay deegaan ahaan ay u leeyihiin qabiilada kala ah Gaaljecel iyo Baadicadde haddaba marka suurtagal ma tahay marka sida ay beelaha kale ee gobolka degan sida beesha Xawaadle iyo beesha Jajeele ee deegaanadooda uga sifeysteen cadowga argagixisada ah labadan beelood deegaanadooda ma uga sifeysan doonaan kooxda argagixisada ah waa su'aasha taagan ee la isweydiinayo haddii waxaa la rabaa dagaalka sidiisaba waxaa la rabaa deegaanka qabiilka degan 70% inuu ka qayb qaato dagaalkaasi ayaa loo baahan yahay halka inta soo hartay ee 30 ahna ay dawladda ay garab ku siiso haddaba Gaaljecel iyo nimanka la yiraahdo Baadicadde ma noqon doonaan dagaalkaasi kuwa horkaca oo 70% dagaalkaasi ayaga yeesha oo ku guuleysta in ay kooxda argagixisada ah ee deegaankooda ka saartaan waa su'aasha la isweydiinayo haddaba waxa weeye markaa kuletaba waxaan leenahay dagaalkaas waa soo dhaweynaynaa horta kor iyo hoosba oo kooxda argagixisada ah looga saarayo deegaanada ee hadda ay ku arsan yihiin ee gobolka Hiiraan ee qaybta galbeedka Hiiraan ah runtii marka waxaan leenahay Gaaljecel iyo Baadicadde rag iska dhiga oo xaniya iska baara oo shalay waxaad ku qeylinayseen markii Xawaadle uu ka dagaalamayo deegaanadiisa oo kooxda argagixisada ah dagaalka kula jiray waxaad lahaydeen dawladdii hal beel oo kaliya ayay garab siisay waxadaladii hore oo Xawaadle ay dawladdii garab siinaysaa ayaad ku hadaaqi jirteen hadda waatana dawladdii waa idin taagan tahay waana idin soo jeesatay waxaa loo baahan yahay Gaaljecel iyo Baadicaddow inaad ragnimo aad iska baartaan oo kooxdan argagixisada ah aad dagaal la gashaan oo deegaanadiina aad ka sifeysataan runtii cid idinku imaanayso ma jirto waxa idinku weeliyo oo kaliya waxay tahay ciidanka dawladda kuwaas oo logistikada iyo howlahaas iyo waxa idin garab siinayo oo qaabilsan laakiin dagaalkii la rabaa inay galaan dagaalka inay galaan oo dabka galaan waxa loo baahan yahay waa qabaa'ilka meesha degan sida Gaaljecel iyo Baadicadde adinka lidinka rabaa inaad xaniga iska baartaan adinka lidinka doonayaa inaad hor kacdaan dagaalka adinka ayaa lidinka doonayaa inaad wiilashiina dabka aad gelisaan haddaad isdhowrataan oo wiilashiina aad dhowrataan ogaada dagaalkaasi meel lama gaarayo meel lama gaarayo laakiin waxaa lidinkaga baahan yahay inaad wiilasha dabka aad gelisaan oo nafta aad hurtaan oo aad maalka aad bixisaan oo jeebadaha aad soo fagtaan ayaa loo baahan yahay marka waxaan leenahay kuletaba insha Allah dagaalkaasi kuletaba waxaan u rajaynaynaa guul
iyo in cadowgan ummadda Soomaaliyeed yacni ragaadiyay in la iska qabto oo deegaanadaasi laga sifeeyo marka waxaan leenahay baadacadde iyo nimanka liidada gaal jecel soo dhawaada dawladdii maanta adinkeeda garab taagan tahay waa idin diyaar dagaalka inay la gasho ayay dawladda go'aan ku gaartay insha Allah marka adinkana waxaa idinkaga baahan yahay inaad dawladda hor kacdaan inaad dawladda hor kacdaan oo aad dagaalka aad ku hor kacdaan oo aad tustaan meelaha argagixisada ay joogto iyo luuqyada iyo wadooyinka in ciidamadan ilaa ciidamo qaran weeye waxa laga yaabaa deegaanka inay soo dhalan oo deegaano kale ay ka yimaadaan ciidankan adinka ayaa idinkaga baahan yahay marka inaad ku hogaamisaan dagaalkan kooxda argagixisada lagula jiro marka waxaan leeyahay kulay taba qorshahaas ayaa magaalada Beledweyne ka socdo ciidamo hore oo halka u jooga way jiraan ciidamadan beeleed iyo kuwan dawladda ayagana shalay ayay gaareen magaalada Beledweyne oo waxay ka bixeen magaalada Muqdisho halkaas ayaa la iskugu tagay qabanqaabo ayaa lagu jiraa oo qaabkii yacni loo weerar lahay deegaanada ay ka fadhiyaan kooxda argagixisada ah ee galbeedka Hiiraan marka waxaan leenahay insha Allah guul ayaan u rajaynaynaa dagaalkaasi iyo kooxda argagixisada oo laga adkaado laga guuleysto ayaan u rajaynaynaa marka gaarjacal iyo baadacaddo waxaan leenahay ragnimo la iska baaro laganimo hal iska baaro dawladdii maanta way garab taagan tahay shalay dad ku eedeynaysan dawladda inay idin gabtay maanta way idin garab taagan tahay dawladdii adinka ayaa idinkaga baahan yahay inaad yacni dawladda hor kacdaan ciyaarey marka waxaan leeyahay meel kastoo aad joogtaan wadi salaam ayaa saaxiibka Cabdi Xakiin Master Code leh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.